السلام عليكم Soomaalidu waa salaamay ruwadi Yusuf Ali Daa aabeeyo dhintani hooyada isla joogno waxa cunimeysan guriyana deganaa isaan oo dhibaateysanay ilaahna loo maanta sheeg waxba isku maawoon hooyada way ka xanuunsan tahay shaqo waaye meel walba aasto dadku waxay dhaayaan nimanka waaweyn waxay dhaayaan hadaa shaqo rabtidana isfaana waa kadib waa shaqo ku siiya أنا وحاسة عدا ظروف تكبي قرية سويها لا دكنتيني وعملنا ما سنو إلى أنو لوجاي وصومالي دلي دمل بجوت وقعد سنين أنا صعب يعني لا درتي سنو صعب يعني صومالي إلى درتي سنو صعب قرية أنا دكنا وجدين وهذا سنة وحنوصنتا إذا عدا قير لا سي إلى قير سي إذا عدانيتي يوكا قرب نسيو maanta yuka baraha bulshada noo soo bandhigeen Soomaaliyeena soo caaway dalid meel ba joogtiin way meel shaqo ma tagtay meel shaqada aad tagtay waa maxay nin meeshan ciidan diriska dabaq meesha kula waxa dhawalaalo nin mas'uul meesha ka shaqeysay markaas uu yiraahdo shaqo ku siiyay adeena isfaana waa kadib shaqo ku siiyay هذا وشيء إلهي يا كوينة تدرفتي اللي فايدة قريس كجاوي ترى مركز إذا عدان وطيلا خرسي يقعدين أنا قرب كسينينا أقدوينا قرينا بايد أنا كدرت حوجا وهذا ما شقين كتاع دي شغل وصية مش شقين كتاع هو شقي كرا دا حوجا شقي هو شقي كرا وهذا دا شقي لا ومدة Soomaaliyeed ay soo nuuso gargaaraan sana u dhibaataysan ujeeda birabadana loo jiro maanta rabadan toomaro waxa uu noo meesan guriga soo yaala deganay waana Soomaali ciyaalkeena tabii caadi caawayaan ilaahna loo waxa uu meesano Maryan Shurow Maxamed waa hooyada dhashay Ruwayda Yusuf waxay ummadda Soomaaliyeed ka codsatay in gabadheeda Ruwayda shaqo loo siiyo si ay xaaladan adag ay qoyska haysata ay ugu bixiso isla markaana ay biilka reerkan u soo dhicisa hadii shaqo la sii waa shaqay kartaa dadka haday shaqo sii tiraadan as afgarad aan rabay dhawaan as afgaradna ilaahay in xunaan qasay ilaahay ima tuso wax dhibaato ilaahay inuu ugu tusin ilaahay aan xut shaka baryaaya ummadda Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inay isxaan iyo sameeyso ay soo tabarucdo Ismaaciil Adan Bariisa telefishinka Soomaali Cable